بسم الله الرحمن الرحيم وقت وعيري waxaan isku dayayaa inaan soo koobo gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo guud ahaan golaha xukuumadda madaxweynayaasha dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiyaha maxkamadda sare xildhibaanada labada aqal taliyayaasha ciidamada qalabka sida madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka federaalka madaxweynayaashii hore ee dowlad goboleedyada hogaamiyaasha ururada siyaasadeed ururada bulshada rayidka ah ay ugu horeeyaan culamaa udiinka ururada haweenka ururada dhalinyarada wakiilada beesha caalamka bahda saxaafadda iyo bambeyda marti sharafta kale waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan rabaa inaan kaga cudur daaro wakhtigii oo dib nooga dhacay waxay ahayd barnaamijkeenu inuu saa ka bilowdo waxaanan idinka mahad celinayaa dulqaadkiinu ilaah baa mahad iska leh oo mar walba noo suurtogeliya oo noo fududeeya kulamada noocan oo kale ah khaasatan kulankan maanta aan isugu nimid oo ah gabagabada wadatashigai qaranka uu hoggaaminayey ra'iisul wasaaraha ay qayb ka ahaayeen dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda iyo gobolka banaadir sharaf bay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo kulligiin aad ka soo qayb gashaan xafladdan aan ku soo gabagabaynayn aan ku soo xirayno wadatashigai guud oo aan ku gaaraynay heshiis siyaasadeed oo doorasho wuxuuna noogu dhammaaday guul iyo noogu dhammaaday waxaan leeyahay hambalyo waxaan u hambalyeenayaa ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir waxaan leeyahay hambalyo mar kale waxaad mudan tihiin bogaadin waxaad mudan tihiin sharaf waxaad mudan tihiin ammaan shaqadii adkayd oo aad qabateen oon ognahay oo muddada dheer soo jiitamaysay doodii adkayd aad soo gasheen 3 beri 4 beri aan soo dhaafnay oo ay maanta ugu dambaysay dulqaadkiinnii faraha badnaa iyo dadaalkiinnii ay ugu dambaysay tanaasul inaad la timaadaan oo isu tanaasushaan si dalka uu u aado doorasho loo dhan yahay doorasho raalli laga yahay doorasho wada ogol ah oo kulligeen aan wada qaadannay oo aan wada aqbalnay waxa weeye guul yahayd guul noo soo hoyatay annaga keliya ma aha waa guul soo hoyatay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan rajadoodii iyo hamigoodii kor u qaaday maxaa yeelay waa inaan fahamnaa dadka soomaaliyeed waxay doonayaan deganaashay rabaan deganaashay doonayaan waxay doonayaan doorashay rabaan waana u diyaarsan yihiin marka runtii waa idinkaga mahad celinayaa juhdigaad geliseen maanta ummadda somaliyed inaad ka farxisaan aad iyo aad baan runtii idinkaga mahad celinaya waxaan rabaa inaan mahad gaar ah aan u celiyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka hoggaankiis uu ku hoggaamiyey sida uu u casumay dowladaha xubnaha ka ah dadaalkiisii faraha badnaa uu dhabar adeegay uu u dulqaatay doodii faraha badnayd oo dhinacyo badan ka imaanaysay intaas waxaa dheer nabadoonnimadiis sida uu ugu dhex jiro
waad ku mahadsantahay ra-iisul wasaare sida runtii aad u hoggaamisay golahan wada tashiga ah ee wanaagsan sidaad u hoggaamisay aad baan runtii kaaga mahad celinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyaga naftigooda waxaan rabaa inaan la dardaarmo jidkan waa soo marnay khibraddeedana waa leenahay waxaan idinka codsanaynaa ummadda soomaaliyeedna idinka codsanaysaa madaxdii halkan soo istaagtayna ay idinka codsatay inaad hawshaan laydiin xil saaray oo mas-uuliyaddiisa aad leedihiin inaad hore u dhaqaajisaan doorashadan waxay u baahan tahay heshiis waa la gaaraa laakiin waxay u baahan tahay hirgelin waxay u baahan tahay dhaqangelin waxay u baahan tahay dhammaystir iyay u baahan tahay marka runtii mas-uuliyaddan idinkaas ka leh idinkay hadda idinku soo wareegtay the ball is in your court saasaa la yidhaahdaa aniga kaalintaydu iyo shacbiga guud ahaan kaalintoodu waxaa weeye inaan idin kaalmayno oo aan idiin ducayno oo aan idinkuu tufno oo aan idiin barakayno waan idiin barakeennay hawshaan waxaan idinkugu ducaynay inuu ilaahay idiin fududeeyo hawl sahlan ma aha dhammaystirkeeda waa naqaanaa ilaahay inuu idiin fududeeyo oo doorashadan ay noogu dhammaato doorasho nabada doorasho hufan doorasho xalaala murashax kasta qof kasta oo muwaadin ah oo doonaya inuu dalkiisa u adeego oo public service uu qabto inuu xuquuqdiisa uusan idinka waayin aad cadaalad u samaysaan waxaan rabaa hoos inaan ka xariiqo koontada ama qaybta dumarka yaan rabaa hoos inaan ka xariiqo dumarku waa lafdhabarka bulshadeenna weeye waa hooyooyinkeen waa xaasaskeenna weeye waa gabdhaheenna waxaa loo baahan yahay inaad xuquuqdooda xaqiijisaan oo kootada la sheegayo oo ah 30% inaad muujisaan markaan inaan 40 gaarsiin karno hadduu eeba yidhaahdo cafiska walaalkay uu soo jeediyey madaxweynahaygii hore oo aan saaxiib ka nahay sheekh shariif waa wada qaadanay soo maaha anna waa idin cafiyey cafigiina waa qaatay aad iscafinay waa qaatay waana runtii wax loo baahan yahay inaan ka gudubno siduu sheegay waa dhab waxa weeye waa siyaasad waxaan ee ma aha qof nacbaysi ma aha suu sheegay weeye marka cafiskaas ilaahay ha noo qaado qulubteennana ilaahay ha soo geliyo iyadoo dhab ah waxa weeye waxa ballan noo ah inaan diyaar u nahay ama aan u diyaar garownay doorashada insha allahna doorashadan waxay ku dhammaan doontaa guul wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu